السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. subax wanaagsan baan leeyahay Soomaali meelaad joogtaanba inta yeemeen tayna hameen wanaagsan baan leeyahay hameenka idin wanaagsanaado dhammaantiin Ilaahay idankiisa waa idin salaamaya meelaad joogtaan iyo magaalaba waxaan leeyahay Soomaali weyn waa idin salaamaya Ilaahay idin salaamo yeelo waa maalin Itniina إلهي مالنت خير كذا ينسوا عادية إلهي إذا كيسة شرك أدونكنا الله إنا موتيو إلهي إذا كيسة ميلا تشوكتان دمانتين وإذ السلام يا سومالي محمد إلهي حفظه ميلا تشوكان بقى صغيرية كبير بقى سومالي وضدك كيغان شعل هاي وهمين يا مالن بورك إيغي يالا إلهي كحفظه شركان أدونكان صعدا iyo midka aakhiro kulul oo la sheegay oo su'aasha dhibta badan ba Ilaahay khayrkiisa hayna soo aadiyo wixii shara Ilaahayna ka xijaabo meelan joognaba maalintaas khayr kale Ilaahay maalinta khayrkeeda hana soo aadiyo wixii sharana Allah naga xijaabo Ilaahay idankiisa Soomaali meelaad joogtaan ba waa idin jeclahay Allah idin jeclaado wal dunya wal aakhira insha Allah waa maqaalid إلهينا حفظه إلهي إذا كيس خالدي أنت لمده صومالي أردن إلهي إذا كيس الله حفظه ميلي تشوغان الله كو حفظه كنا بتقليه ساك ومالين ما مالين اثنين dadka waxaa laga yaabaa inta badan oo khayrka jecel inay soomayeen إلهي maalintaas khayrkeeda hana soo aadiyo Ilaahay idankiisa intii sooman waxaan leeyahay soonkooda Allah ka aqbalo maalintaas khayrka badan oo Ilaahay jecel yahay Ilaahay idankiisa biidmillah saaka waxaan rabaa mawduucayga inaan uga hadlo in mar walba la isbaraarujiyo oo wixii khayr la isku baraarujiyo kaliibkii ka horeeyay waxa ka hadlaanay Abu Khalid baa ka hadlay aniga iyo Abu Khalid baa hadal isweydaarsanay oo ka hadalnay mawduucan ka hadlayna wuxuu ahaa gabdhaha hadda la guursanayo iyo hooyooyinka iyagii horeba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qof walba ama hadda la guursado ama hore loo soo guursaday ama wiilku ha soo guursado ama haddaba ha raba ha guursaday mar walba wixii xaq in la iska ilaaliyo waa fiican tahay Ilaahay la isaga baqo sababtoo qof walba waa mas'uul qof walba waa mas'uul oo wuxuu mas'uuliyadda Allah uga dhigay buu mas'uul ka yahay Ilaahay subxaanahu waxaan ka baryaynaa intii khayraad leh baan Allah ka barinay Ilaahay suu keen dambe dhaafo gabdhuhuna wiilasha u baahan yihiin wiilashuna gabdhaha u baahan yihiin qofna geed saar kaligiis ma ahaan karo Ilaahay subxaanahu la isaga baqo oo Allah subxaanahu qof walba qofka kale ha uga baqo xaq uu ku leeyahay ma wada dhamayn kare laakiin intuu ka agdaro oo uu ka agdaro inuu fuliyo khasab bay ku tahay qofkii alla rumeeyay intii alla raali ka yahay inuu qabto intuu agdaro oo naftiisa ku agdaro inuu qabto intaba waxa weeye inuu qabto weeye oo mas'uuliyadaas uu qaaday Ilaahay hortiisa amaama Allah bir la weydiinayo inuu qabto waa fiican tahay qof walba qofka kale Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa u jeeda haduusan isagu u jeedinin Allah u jeeda qof walba mas'uuliyadiisa inuu ka haram maahan qof walba mas'uuliyadiisa inuu maaragtaa uu isku lada maahan qof walba mas'uuliyadiisa inuu ka soo baxo weeye sababtay taa waxa naga horeysa meel Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uusan qofna ilowsaneyn waa arki waayay waa qaban waayay waa awoodi waayay aysan imaanaynin haddaad isku ladid Ilaahayna adna maalinta aakhira waa isku kaaladahayaa marka qof walba inuu mas'uuliyadiisa qaato oo qof walba mas'uuliyadiisa ka soo baxo asagoo ula jeeda Ilaahay dartiis iyo mas'uulka uu qaaday wiilka waxa la leeyahay marka gabadha lagu meherinayo warmaandho mas'uulkan ma qaadahaa buu leeyahay gabadhu waxa la leeyahay maanta inaad ninkan guursatay mas'uuliyad taas raali ma ka tahay bay dhaysaa marka waxa weeye markhaatiga adduunka markhaatiga u soo yeerateen
aakhirana waa idinla socdaaya haddaba ogaada, ha u malaynina inuu muxuu ahayta idinkaga harsan yahay. ilaaha subxaana watacaala aan markhaati u baahnayna waa ogyahay. marka qof walba waxaa weeye mas-uuliyadda uu ilaahay hortiisa ku qaaday inuusan iloobin weeye. nin waxaad arkaysaa ama wiil waxaad arkaysaa gabar buu guursanahayaa, waxaaba laga yaabaa inuusan intaasoo biloodba arkin. waxaa laga yaabaa inuusan muxuu ahayta ilmuhu dhalay oo isagu dhalay inuu adinaadan moodin inuu mas-uul ka taha, soomaaliduba ha u badnaatee, inuusan mas-uulba ka ahayn. gabadhiisaan ama wiilkiisaan mara uu xirto inuusan gooru u gataba goor ugu dambeysa inuusan jirinin baad moodaa, inuusan jirinin oo aadan moodin inuu mas-uulba ka yahay ilmaha kan. waxaa weeye haddaba soomaalidu ilaahay subxaana watacaala ha ka baqdo. ilaa codkaygaan hadda aan duubayo wax garanayo oon soomaali ahayn ma jiro. qof dhifo hadda afka bartay waa laga yaabaa, laakiin ugu badnaan soomaalida garanaysa. marka waxaa weeye soomaalidu ha ogaada aabbahan inuu mas-uul yahay oo ilmaha kan wuxuu ilaahay ka agdaro, ilaahay ka agdaransiiyo inuu u qabto. ha noqoto muxuu ahayto waxay ku noolaan lahaayeen, ha noqoto waxay xiran lahaayeen, ha noqoto diinta uu baro, ha noqoto masjidkaas. waxaa weeye ilmihii markay yaryar yihiin, wiilkii markuu yaryahay inuu baro aabihii inuu masjidkan aado, ilmihii uu masjidka kusoo tukado, aabihiisa raaco. waxaa weeye markuu raaco aabihiis raaco oo aabihiisoo masjidkii ku xiran arko oo yilaado waryaana keen qur-aanka u dhigo oo qur-aanka geeyo, asagoo la fariisto wax yar muxuu ahayto masjidka uu geeyo uu la soo tukado, ilmihii waxaa weeye way baranayaan masjidkii inay aadaan, inay qur-aankii bartaan, inay alla ka baqaan. laakiin hadduuba aabihiiba uusan maaragta uusan mas-uuliyaddii sii qaadan, hadda ogow beri hadduu maanta hadday ku dayso beri waa ku soo qabanaysaa. ogow hooyadu sidoo kale ilmaha inay tiraado kaca masjidkii aada, kaca salaada soo tukada hooyo, muxuu ahayto gabadha ay salaada u kiciso, wixii wanaaga ay farto ilmihii xaq baa loogu leeyahay. sababtay tahay shalay waxay tiri xaadir waa yeelay maandhay wiil ninkan ma guursatay, haa waa guursaday. ilaaha agtiisana beri markhaatigaas buu alla subxaana waxna ma iloobo, waxna kama tago, waa caadil weeye. marka waxaan leeyahay soomaalidu ilaahay subxaana watacaala ha isagaga baqdo, qof walba qofka kale ilaahay ha ugaga baqo, naftiisa ha u daneeyo, naftiisa iyo beri meel uusan maaragta uusan ilaahu celi waa soo cibaadaysanayaaye iyo muxuu ahayta laga yeeli maayo. marka maanta oo afkiisu qoyan yahay qof walba waxa weeye mas-uuliyaddiisa ha qaato. waaridku waxaa weeye waaridku wiilka hooyaa soo dhashay, hooyaa soo tarbiyaysay, hooyaa kusoo dhimatay. hooyo sidaad adigu ilmahaaga u jeceshahay waxaad u jeclaataa wiilka hooyadiis, aabihiis, walaalihiis u xariiri oo u soo dhawee oo u wanaaji. sababtay taa waxaa weeye mas-uul baad ka tahay, waxaad mas-uul ugaga tahay waxa weye guriga markii lagugu yimaado mas-uuliyaddii ay lahayd waaridku lahaa waa inaad qaadataa. walaalku mas-uuliyadduu lahaa waa inaad qaadataa. sababtay taa adigaa hooyadiioo gurigii jooga oo ka mas-uula. wiilku waa sidoo kale gabadha hooyadeed, walaalkeed, walaashiis, eedadeed, habaryarteed waa inuu mas-uuliyaddeeda qaataa. waaridkii waa inuu waarid isku mida oo ilaahay subxaana looga baqo oo guriga laga soo dhaweeyo waa inay u haataa. waa inuusan maaragtaa waaridku uusan dhihin gabadha wiilku qabo muxuu ahayto gabadha wiilku qabo hooyada wiilka dhashanaysan dhihi gabadha wiilkayga gabadhuu qabo inay tiraahdaa ilmahaygii weeye. ayada waa inay wanaagga ku bilowdaa, waa inay kusoo dhaweysaa, waa inay ogaataa inay gabadheedii iyo wiilkeedii inay tahay oo gurigeedii ay tahay inay ogaataa. gabadhuna inay ogaataa gurigan guri uu yahay ehelkii iyo walaalkii iyo muxuu ahayto sharaftii dadkii laga rabo in iyada laga rabo soo dhaweyntii reerka in laga rabo iyada inay ogaataa weeye. qof walba hadduu qofka kale ilaaha subxaana uga baqo waxa weeye wax laabaya iyo wax qaldamaya midna ma jiro. ilaahay baa qof walbana quluubtiisa daacadoo u jeeda. hadduusan wiilku u jeedin ama gabadhu u jeedin, allaha subxaana u jeeda oo wax walba aysan ka qarsoonayn. marka waxaa weeye waxaan leeyahay gabdhuhuna allaha ka baqeen, wiilashuna allaha ka baqeen. sababtita gurigooda ku wanaagsanaanaya. ilaahay subxaana watacaala baa gurigooda wanaajinahayo, qaboojinahayo, dejinahayo. reer degan oo wanaagsan bay noqonahayaan hadday alla isaga cabsadaanoo
waaridka alla uga cabsadaaninoo wiilkuna ogaado gabadhan in hooyo soo korisay oo hooyo kusoo dhimatay oo aabba kusoo dhintay oo loo soo rabeeyo loo soo koriyo intaan loo soo leekaysiyo waarid inuu usoo leekaysiyo inuu ogaado inuu yiraahdo ilaahay waaridkii ku dhalay alla waxaan uga baryaya ilaahay janno firdowsa aclaa inuu geeyo sababtay taadayba ii soo kaa koriyeen dharkaada ii dhaqaysaa cunadaada ii karaysaa ii karinaysaa gurigiibaad iiga shaqaynaysaa ilmahaygiibaad dhalaysaayoo ku dhibtoonaysaa wax walbaad iigaga horeysaayo hadda gurigii ah inuu yiraahdo gabadhuna inay sidoo kale tiraado ilaahay waaridkii ku dhalay oo kusoo rabeeyo kusoo koriyo kugu soo tiiriyo tacabeelay waa adigaas hadda aniga ii shaqaynahayo aniga ii dhimanahayo aniga ii kacayo ii kufahayo ilaahay waaridkaas ha u naxariisto hadday dhinteen hadday nool yihiinna ilaahay jisadooda ha siiyo ha tiraahdo sababtay taa waxaa weeye qof walba qof baa kusoo dhintay usoo koriyay qofkii usoo koriyay waxaa laga yaabaa intaad adigu aad noloshaad adigu ku haysatay inaan waaridkii dhalayba ku haysan marka waxaan leeyahay qof walba ilaahayga subxaana watacaala mas-uul buu ka dhigay mas-uuliyaddiisa ha qaato qof walba alla mas-uul buu ka dhigay oo mas-uuliyaddiisa ha qaato hadduu rabo gurigiisu inuu qaboobo gurigiisu u dhismo oo risiq khayr qaba aada iska heshaan mid ilmo ha noqoto mid xoog ha noqoto mid risiq ha noqoto wax walba ilaahay subxaana dembigeena iyo dembiga waaridkeenba ha dhaafo ilaahayna ha isugu keen naxariisto ilaahayna ha isugu keen naxariisto dembigeena iyo dembi waaridkeenna alla ha dhaafo innaga unbaa is afgaranayna cid kaloo ina afgaranaysaa male iyo cid kaloo ina ogba ma lahan haddaynu Soomaali nahay inaga unbaa is afgaranayna inaga unbaana inaga unbaana ehela qof walba qofka kale ha garansiiyo wixii wanaago ilaahay raalli ka yahay ilaahay isugu keen dambi dhaafa Soomaaliya meelaad joogtaanba ilaahay idankiisa wixii dhiba oo dhibaataana ilaahay hayna ka hayo mid adduuniya mid aakhirana waxa weeye wixii aad samaysatid baad ula tagaysaa wax kaloo kaaga horeeyaa ma jiro waxaad ilaahay ka hortiisa ku samaysatay afkaagu geystay oo naftaadu geysatay oo waxa weeye baa biri kaa horeeya qof walba war maxaad biri la tagaysaa meeshii aan laga soo noqonayn hays yiraahdo laguma jeeday waxaa samee marna hays dhihin allaha subxaana watacaala khaaliqa ah oo ku abuurtay ayaa kuu jeeda marka waxaan leeyahay Soomaaliya ilaahay inoo naxariisto inoo dambi dhaafo hana ina xafido meelan joognaba ilaahay idankiisa muslim iyo gaalab waxaan dadkan la noolnahayn allah inoo qasbo ilaahay intooda san hayna soo gaarsiiyo intooda xun allah hayna ka xijaabo meel aan joogno maan ku noolnahayba balad iyo baadiyaba adduunka meelaan ka joognaba ilaahay subxaana watacaala dadkaan la noolnahay oon la joogno sharkooda allah hayna dhaafiyo khayrkoodana allah hayna soo gaarsiiyo innagana sharkeenna allah ka dhaafo khayrkeennana allah gaarsiiyo ummadahan la noolnahay ilaahay idankiisa Soomaali Maxamed waxaan idin leeyahay khayrkana isfara sharkana iska waaniya ilaahay idankiisa khayrkana isfara sharkana iska waaniya sida ilaahay inoo kugu naxariisto ilaahay inoo dambi dhaaf meelaan joognana allah ina ku xafido maanta intaasaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo oo shalay aniga iyo Abu Khaalid hadalkan soo duubnay ayuu la socdaa ilaahay idankiisana mid badan oo badan baan idiin soo wadnaa aniga iyo Abu Khaalid insha Allah biidmillaah haddii ilaahay qadaro alla aqdaro ilaahay idankiisa ilaahay inoo dambi dhaaf allahna ina cafiyo waxaan idinkaga tagayaa khayr iyo barako maalintaas wanaagsan oo dadka qaarkood sooman yihiin ilaaha subxaana watacaala hayna soo aruuriyo nabadna hayna ku xafido meelaan joogno intii kurbaysana kurbiga allah ka qaado intii xanuunsana xanuunka allah ka qaado caafimaad allah ugu bedelo ilaahay idankiisa intii dhimatay oo waaridana allah u naxariisto iyo muslimiintaba intii dhimatay allah u naxariisto intii dhib haysana allah dhibta ka saara ilaahay idankiisa allahna ina soo aruuriyo hayna xafido meelaan joognaba ilaahay idankiisa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh